soo dhawaada saaxiibayaal mar kale muuqaalkan muuqaalada hormaanta waa ka gedisan yahay. Waxaan idinkula wadaagayaa marka uu horeysay aan safar galo anoo darawala oo gaarigayga wata. Waxaan idinla wadaagayaa waxyaabihii ugu cusbaa aan bartay iyo waayo-aragnimadii ii siyaaday intaan muuqaal qaybihiisa kale u gudbin. Haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub waxaa kaa rajaynaya inaad nagu soo biiritid muuqaalkana like tiraahdi fadlan adoo mahadsan, sidoo kale channelka subscribe aad tiraahdi. Inta haddii aan kasoo gudubno safarkayga asbuuc ka hor waxaan soo gatay baashaan ujeedaan waa baasha kaamirada ii qaban lahayd markii aan rabo inaan wax duubo aan ku jiro gaariga gudihiisa. Sidoo kale waxaan la soo degay application-kii iga saacidi lahaa safarkayga gaar ahaan dhanka maapka. Waxaa jira dhowr application oo kala gedisan laakiin kan anigu maanta isticmaalayo waxaa la yiraahdaa Wise. runtii isticmaalkiisa aad iyo aad baan uga helay. Wuxuu kuu sheegayaa macluumaad kasta oo wadada ku saabsan, xataa wadada kaamirada kale wuu kuu sheegay haddii wadada kaamirooyin waxaa ku xiran yihiin, haddii xataa accident ka dhaco kale. marka waxa weeyaan markii aad maapka geliso kale xataa wuxuu ku tusayaa meesha u socod inta wada oo gashay iyo wadada kuu fudud. intaas haddii aan kasoo gudbo xaafadii markaan kasoo dhex baxay wadada haweyga meeshaan aan ka qabsaday. wadada markii cabaar socotay aad iyo aad u ballaaratay sidaad arki kadhaan. sidoo kale masaafada safarkeena waxay u dhaxaysaa 70 ilaa 75 saacad ahaana waxay qaadanaysaa 1 saac ilaa 1 saac bar inta u dhaxaysa. meeshaan u safrayno iyo safarkeena meesha ku ogyahay muuqaalka qaybtiisa dambe baa idin kula wadaagaya, halkaas aad ku arki doontaan. waxaan rajaynaya ilaa muuqaalka dhammaadkiisa inaad nala joogtaan. markii laga soo tago haddii aan idinla wadaago caqabadii qabsaday wadada dhanka bidix baan ka haystaa ama ka saaranaysa arki kartaanba. marka wadada soo socoto waxaa jira wadooyin kale oo ka leexanaya maadaama wax markii ugu horreysay aan ku safro wadada ahayd iyo sida haweenka loogu safro markii ugu horreysay ahayd xoogaa maartay khibrad yari dhanka ka timid waxay sababtay inaan wadadii leexanaysay aan ku leexdo, taasoo iga leexisay wadada weyneed aan ku socday. kadib waxay noqotay 2 mar baan ka lumay wadada, marna 5 daqiiqo lumay, marna 10 daqiiqo. laakiin labada jeer aan lumay kadib waxay noqotay 10. waxaan si fiican u fahmay meel wadooyinka leexdaan, waxayna ii horseeday mar dambe inaan khaldamin oo aan meesha laga yiraahdo haddiise wax khaldamin wax ma saxmaan. ugu mar walba wax ka khaldamaan ama wax ka xumaadaan haddii dib u diristid waxaa ka baranaysaa 10 mar walba gadaal ka anfaca. waxaan soo socday ugu dambeyn waxaan ku soo dhawaaday magaaladii aan rabay inaan soo gaaro. hadda wadada haweyga waa ka soo leexday, waxaan soo aaday wadadii toos u soo galaysay magaalada. si arki kartaan magaalada waa soo galnay. magaalada magaceeda waxaa la yiraahdaa Luton. London wuxuu jirtaa qiyaastii 70 ilaa 75 kilomitir saa hore kuu soo sheegay. London marka la joogana waxaa jira magaalooyin badan oo ku hareeraysan, tanna waxay ka mid tahay magaalooyinkaas ku hareeraysan London. waxyaabihii soo jirta waxaa ka mid ahaa markii loo fiirsho xagga nolosha inay aad iyo aad uga jaban tahay London. dhanka kale haddii aan sawirdan ka siiyo magaalada mana yara mana weyna. sidoo kale waxay leedahay airport caana oo magaciisa la yiraahdo Luton oo magaca magaalada wata. waa laga dhoofaa waana laga soo degaa. inta haddii laga soo gudbo waxay iska xilli duhura waxay nala noqotay inaan qada iska doono asxaabta mid ka mid ah ila socda. waxaan soo aadnay maqaayad xalaal oo Afghanistan leeyihiin. weligaa maqaayad Afghanistan maana gelin markii ugu horreysay ahayd. markaa maqaayadii nimid waa ku ilxaaxnay waxaan dalbano waan garan weynay maadaama cunno Asian weliba cunno Afghanistan iyo hayeen. ugu dambeyntii gabadha meesha ka shaqeynaysa markayna aragtay inaan naga wareersan tahay bay waxay tiri anaa maartay cunno idin recommend gareynaya. marka cunnadan bay aad arkaysaan bay noo keentay iyada maartay noo doodhay. kadib waxay iska noqotay haddii la ku idmay inaan dee wixii naloo keenay aan goos ka saarno. inaan la wadaago bangi online aan isticmaalo. bangigan awood wuxuu leeyahay inuu sarrifo 40 lacagood oo kala gedisan. haddii aad dadka safra ama qorshaha safarku ku jiro waxaan aaminsanaa 100% bangigan inuu ku anfacayo. bangigana furanaysaa kaarkooda aad dalbanaysaa kadibna lacagta u baahantay inaad isticmaashid baa bangigooda ku shubaysaa, saasana kaarkooda ku isticmaalsaa. 40 wadan in lacagooda sarrifaan mid ka mid ah haddii aad joogtid ma u baahan lacagta inaad meel kale ka sarrifatid, automatically bangigana ku sarrifaya oo isticmaalsa. xarunta ugu weyn wuxuu ku taalaa UK. bangigan oo bangi 100% badanaa dadka internet ka shaqeysta baa isticmaala. midna hadda aniga UK baan joogaa, haddii aan rabo inaan Europe aado kale ma u baahna lacag euro waxaas inaan qaato. bangigan isticmaalkiisa ugu filan asaga automatically ii sarrifaya lacagtii oo weli wuxuu ku sarrifiyaa qiimaha ugu hooseeya aan hubo 100% inaad ku qanacsaan. sarrifka ugu fiican suuqa buu ku siinaya. haddii Europe aad joogto wadamada Scandinavian-ka qaarkood euro laga isticmaalo lacagta koronta aan euro laga isticmaalin waa tabto kale. haddii aad u socotid East Africa gaar ahaan Kenya shilinka xataa waxa uu ku sarrifiyaa saaxiibiyaan. sidoo kale haddii aad u socoto wadamada Carabta sida maartay Sacuudiga ama Imaaraat asna waa sidoo kale. sidoo kale haddii aad u socoto wadamada Asia sida China kale ganacsi loo aado waa sidoo kale asaa ku sarrifaya iyo Indonesia oo badan dad dalxiis ugu aadaan oo kale.
marka bangiga linkiisa waxaa ka helaysaa qaybta description-ka iyo qaybta comment-ga, halkaasaa ka raaci kartaa. Muuqaalkeena haddii aan kusoo laabano, waxay nala noqotay magaalada qaybeeda kala gedisan inaan soo arko waxweeye aan kusoo mijabaxsado. Sidaan marka hore kugu sheegay magaalo weyn ma aha, waa magaalo xoogaa iska kooban ilaa xad. Marka waxay u suurta gashay inta ugu muhiimsanayd inaan waxweeye lagu soo marno. Gabagabadii waxaa la soo gaaray xilligii aan kasoo ama bixileen meesha aan joognay. Waxay iska noqotay xilli goorgaab ah, waa kasoo safarnay. Hadda meesha arkaysaan waa Luton. In cabaar haddii aan soo socday waxaan kusoo dhacay haweyga intaas soo hayska habeenimo noqotay. Ugu dambeyntii xilli habeenimo baa waxaan kusoo guryo noqday meeshii London ahayd. Muuqaalkeena intaas ku eegaya, waxaan kaa codsanayaa haddii mar halka aan soo gaadhay muuqaalkeena like tiraahdo, sidoo kale subscribe aan ugu saacidid. Aad iyo aad u mahadsantahay mar labaad haddii halkan aan soo gaadhay.